يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك اقرعي. dadka qaar oo nabiga ka soo horjeeda waxaa suurtagal ah in rasuulka calayhi salaatu wasalaam quraanka uu alle u tiiriyay iyadoo ina jirto inuu asagu aliftay si uu u helo caannimo iyo sharaf iyo darajo. marka la waafajiyo wuxuu uu sheegay Michael Hart kitaabkiisa boqolka qof ee ugu saameynta badan taariikhda basharka. markii uu baaray dhammaan shakhsiyaadka laga soo bilaabo aadam calayhi salaam ilaa waqtigan la joogo khilaaf la'aan Hart wuxuu dhigay nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nambarka koobaad ee liiska qofka iyo shakhsiga ugu saameynta badan taariikhda basharka. haddii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu doonayo inuu noqdo nin madaxnimo raba maba aysan ahayn inuu sheego quraanku inuu hadalkii alle yahay. haddii dhab ahaan uu yahay qofka quraanka alifay wuxuu ku cileeyay Michael Hart doorashadiisa uu doortay shakhsi kasta tartiibinteeda iyo kala hormarinteeda ha ahaada kan koobaad ama kan labaad ama kan saddexaad ilaa dhamaadka. ugu dambeyn markuu soo bandhigay siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri isku darsashadan diinta iyo adduunyada iyo waliba saameynta uu ku lahaa labadoodaba waa arinta iga dhigtay inaan shaki la'aan aamino in Muhammad uu yahay shakhsiga ugu saameynta badan basharka adduunyada soo maray dhamaantood. haddii rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu doonayo sharaf iyo caannimo awood iyo madaxnimo waa uu heli lahay waxa soo dhan maxaa yeelay waa u suurtagalaysay wixii suurtagelin lahaana dhamaantood waa uu helayay. quraankana uma tiirin lahayn si beena alle xaqiisa azza wajal dhamaan awoodahaas waa uu haystay. arinta haddaan u taxliilino si aqal ku dhisan waxaan ogaanaynaa shakhsi kasta oo raba madaxnimo sharaf caannimo iyo darajo sareysaba waxaan ogaanaynaa inuu cunto fiican haysto dhar oo ku faano guriyo waaweyn dabaqyo waaweyn dad ilaaliya iyo wixii la mid ah. laakiin haddaan fiirino qaabkii nolosha rasuulka waxaan arkaynaa inuu dharkiisa hagaagsan jiray kabihiisa hagaagsan jiray ariga ayuu raaci jiray dhammaan howlihiisa guriga ayuu qabsan jiray dhulka ayuu fariisan jiray waxba cuni jiray suuqa ayuu aadi jiray kaligiis iyadoo cid ilaalinaysa aysan jirin. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa qof tawaadu iyo hoos isku dhigid badan. haddii qof ugu yimaado inuu soo booqdana xitaa faqiir ha ahaado dacwadiisa iyo yeeritaankiisa waa uu aqbali jiray cunto kastoo loo keenana wuu cuni jiray ilaa xad la gaaro dadka cadowga ku ah inay dhahaan asaga qof kastuu iska dhageysanayaa. quraankuna arrintaas waa sheegay suuratu tawba suurada 9aad aayadda 61 waxay dhaheen waa wax walba maqle. dadka cadawga ku ah nabiga ayay ka xanaaqsanayeen maxaa yeelay qof kasta ayuu dhageysanayaa waa uu dhimrinayaa xitaa fuqarada. waxaa la helayaa tusaalayaal iyo dhacdooyin badan oo ay taariikhdu diiwaan gelisay iyo kutubta xadiidkuba. waxaa kamid ah markii uu yimid mid matala mushrikiinta iyo gaaladii Quraysh waa Utba ibn Rabiica uu yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam asagoo kala gorgortamaya diintiisa wuxuu ku yiri hadii aad ku doonayso waxa aad noola timid lacag xoolaheena dhan ayaan ku jamcinaynaa ilaa aad noqoto ninka ugu taajirsan carabta. hadii aad sharaf rabto madax ayaan ka dhiganaynaa hadii aad doonayso boqornimo boqor ayaan ka dhiganaynaa. dhammaan waxa aan ka doonayno kaliya waxa weeye inaad joojido dacwada aad faafinayso oo ah inuusan jirin alla xaq lagu caabudo alla. nabiga sallallahu alayhi wasallam uu doonayo madaxtinimo iyo boqortinimo waa uu aqbal lahay arrintaas loo soo bandhigay si fudud waliba. tusaalayaal badan ayaa jira waxaa kamid ah markay u sheegeen gaaladii Carbeed Abu Talib oo ah adeerka nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu nabiga ka dalbado inuu joojiyo faafinta tawxiidka. nabigu wuxuu ugu jawaabay sallallahu alayhi wasallam wallaahi adeerkayow haddii qorraxda midigteeda la saaro dayaxana bidixdeeda la saaro oo la iga dalbado inaan tawxiidkan faafintiisa ka tago ilaa uu alla ka soo muujiyo ama aan ku dhimanayo ma ka tagayo ama uu rabbigay doono shay kale. markii uu dhintay wiilkiisa Ibrahim when his son Ibrahim
waxaa la waqti noqday qorax madoobaad. dadku waxay dhaheen tani waa calaamad alla xaggiisa ka timid, qoraxdii madoobaatay. waxay u madoobaatay dhimashada Ibraahim wiilka nabiga sallallahu alayhi wasallam. nabiga waa uu ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam si degdega isagoo leh qoraxda iyo dayaxuba waa laba aayadood oo ka mid ah aayadaha iyo calaamooyinka Allah subxaanahu wa tacaala, umana madoobaadaan qof dhimashadiisa iyo noloshiisaba. hadduu doonayay caannimo iyo awood iyo madaxtinimo, dhacdadani fursad weyn ayay ahayd si uu uga faa'iideysto oo waxuu doonayo u xaqiijiyo. laakiin arrintaasi ma uu samayn, maxaa yeelay qof runlow ah ayuu ahaa. nafsu in lam tadfari la tajza'i لا تجزعي وإلى